سائلك كلا تلدونك هاي ما أنت وحا أولي هي وقبر ويان شيخ أبو دلحو وحا أي دونيسا waxay tiri ninkaygu waxa uu wada taxi bay tiri waa uu shaqeeyaa xagga dhaqaalaha waa uu wanaagsan yahay bay tiri waxa uu baxay bay tiri subaxii hiirta hore waxa uu soo hoydaa habeenkii caruurta oo hurda ayuu baxaa iyaga oo hurdane waa uu soo galaa maba arka bay tiri saa uu maqan yahay mar walba shaq waxay tiri soo mar badan baan la hadlay waxaan war lacagtan aad u ordaysid khayr allaha ku siiye soo kun caruurtiiba ku arki waayey oo iyagoo maqan u badbaxaysa iyagoo hurdane waad imaanaysaa waxa uu yiri hawlahayga faraha kala bax habay isku dayin inaad ka hadasho ayuu ugu hanjabay sheekh bay tiri ninkaasi in aan toosiin baan doonayaaye sida ugu wanaagsan ee aan ku toosin karaa isagana uuna mataqaanaayo hurigeyguna una ku burburaynin ayaan doonayaa inaad igula taliso falyatafadal kuuran wamaajuura بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد ninkaygu waa shaqeeyaa waa tagsiile aroortiibuu baxaa galabkiibuu soo noqdaa carruurtana isma arkaan goorta aan damcay in aan dhaho bal wakti noo sameena waa ka gows qabsaday maxaad igula talin lahayd warta mashaakilaadka wadamadan aanu joogno yaalla mas'alo kamida bay gabadha cabiraysaa weliba haddii maraykanka iyo canada iyo dhinacyada idinku aad joogtaan laga yaabo ragga ila hadlaya way ka sii daran yihiin oo meelahan Scandinavianka yar dhaama baan isleeyahay dhinacaas ayada ah waxaan gabadha kulabta ninku inuu shaqaysto oo reerkiisa u shaqeeyo oo reerkiisa u baahi tiro oo caruurtiisa waxbarashadoodii iyo wixii qaraabo iyo qoys u baahnaan lahaayeen inuu keeno waa mas'alo waa ku amaanaya shaqada intaan inuu samaynayo gabadhuna dhaqaale la'aan kagama calaacalin waxaan ku dhihi lahaa marka gabadhay isqaybiya adigu maxaad qabanaysaa shaqadaad qabanayso adigu tarbiya ha noqoto shaqadaad qabanaysa booskii aabbaha adigu gal ee xagga tarbiyada ahayd waa taladayda weeye maxaa yeelay maanta reerka galbeedka ku nool ee dhaqaalaha u baahan nin u shaqeeya maanta waa u baahan yahay waxaa laga yaabaa haween kale inay su-aalahaaga hadda su-aal ka dambaysa intay timaado inay dhahdo ninkaygii gurigu ii jiifaayo shaqayso ayaan kala ahayo habeenkii oo dhanna qaad buu cunaa maalintoo dhanna wuu jiifaa maxaa sameeyaa marka waxaan leeyahay adigu waad barwaaqaysan tahay intaad aamusto oo shanqadhaada mar dambe la maqlin oo su-aal dambe soo qorin rabbi intaad ku xamdido shaqada inta soo hadhayna adigu qabo shaqada inta soo hadhayna adigu qabo hana ka daalin oo mar walba u sheeg inay ilmihiisa u baahan yihiin taladu waxay tahay lacagtan uu nis hore iyo nis dambaba shaqeeyo qayb kamida carruurta ha lagu geeyo fasaxyada wadamada muslimiinta Soomaaliya asagana dabcan ha raaco oo waa ula soconayaa munaasabaad kala duwan u samee adigu maalmaha weekendiga iyo maxaa mararkaas leedahay munaasabad buu leeyahayna adigu munaasabaadka noocaasa u abuur kolaad midba mar ku darto maraad maxaa la yidhaahdaa aad dhahdo maanta waxaanu soo qabanaynaa mara dhahdo martida noo imaanayso oo maanta martida noo imaanaysa bal martida aan qaabilo kadibna asaga iyo carruurtiiba martida aad ka dhigto 100 dariiqo isticmaal caqligaaga sidaa iskugu xiri lahayd ninkaaga iyo ilmahaaga laakiin warka biyo kama dhibcaanka wuxuu yahay nicmo fara badan baad ku jirtaaye inta hayso ilaahayna ku xamdi ninka asaga ana dhibka ka jooji ha ku dhibin adigu qabo inta ka soo hadhay tarbiyada maadaama carruurta ilmaha masruufkoodii iyo marashadoodii iyo wixii lamida uu kaaga filaaday wallahu a'lam wal ilmu inda Allah